السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada aqoon doon channel. muuqaalkan waxaan uga hadlaynaa sidee hal qof looga dhigaa saddex qof adigoo isticmaalaya Adobe After Effects. muuqaalkan waxaan u adeegsan doonaa Adobe After Effects. ugu horeyn waxaan soo kicinaynaa After Effects-ga. After Effects-ga markuu inoo soo kaco waxaan u baahannahay inaan soo gelino muuqaalkii aanu duubnay. si aan u soo gelino waxaan leenahay right click, kadib waxaad ku dhufanaysaa import, waxaadna ka doorataa file. waxaan soo gelinaynaa muuqaalkii aanu duubnay, kadib waxaan leenahay open. hadda waxaan u baahannahay inaan sameyno drag and drop annagoo soo jiidayna muuqaalkan oon keenayna qaybta composition-ka. muuqaalka markaan ku soo darno qaybta composition-ka waxaan u baahannahay inaan u kala jijibino saddex qaybood. si aan muuqaalka saddex qaybood ugu kala jibino waxaan marka hore kaasarka geenaynaa qaybtii loogu talagalay oo aan u baahnayn inaan muuqaalka kala jibino. kadib waxaad leedahay edit, waxaad ka dooranaysaa split layer. qaybta hore waa bilowga, uma baahnin, waan iska delete gareynaynaa. kadib waxaan soo jiidaynaa qaybtan annagoo ka dhigayna qaybta bilowga. intaa markaan sameyno hadda ayaan jibinaynaa muuqaalka, waxaan geynaynaa qaybta uu ku dhammaanayo. kadib waxaan ka dooranaynaa edit, split layer. layerkan ayaan dooranaynaa, kadib waxaan ka bedelaynaa magaca annagoo u bixinaynaa number 1. waxaad doontaa ku qoran kartaa. intaa markaan sameyno waxaan dib ugu noqonaynaa layerkii annagoo iska tirtiraynaa qaybta aan loo baahnayn. waxaad geynaysaa qaybta labaad uu qofka labaad soo gelayo. waxaan filayaa inay meelahan tahay. qaybtaanoo idil uma baahni. stepkii hore anoo maraya waxaan leeyahay edit, kadib waxaan ka dooranayaa split layer. qaybtan waan iska dhileedayaa. waxaan u baahanahay qaybtan, waxaan geynayaa ilaa qaybta ay ku dhammaanayso. qaybtaa dhammaadka markaan keenno isla sidii oo kale waxaan kala jibinaynaa layerka annagoo dhahayna edit, kadib ka dooranayna split layer. layerka yar waxaan u bixinaynaa layer 2 annagoo ku qoraynaa number 2. right click ku dheh, rename, kadib magaca ka bedel. waan soo jiidaynaa layerkan, waxaana dul keenaynaa layerkii hore. ugu dambeyn waxaan sameynaynaa inaan imaano layerka ugu dambeeyo. waxaan tegaynaa qaybta uu ka bilaabanayo, sidii oo kale edit, split layer. waan iska tiraynaa qaybtan oo uma baahnin. waxaan u baahannahay qaybta ugu dambeysa. waan select gareynaynaa, kadib waxaan leenahay right click, rename, waxaan ku qoraynaa layer 3. intaa markaan sameyno waxaan dul keenaynaa layeradii hore. kadib waxaan imaanaynaa qaybta bilowga. hadda waxaan u baahannahay inaan sameyno masking. si aan masking u sameyno ugu horeyn waxaan iska qarinaynaa layerka saddexaad, waxaana dooranaynaa layer 2. kadib waxaan soo qaadanaynaa masking tool ama paint toolka
kadib waxaan masking ku sameynaynaa layerka labaad. arkaysan waxay noo soo muuqday layerkii. marka masking wuxuu naga caawinayaa inaan isku muujino layerada kuwa qarsoon iyo kuwa kale. waxaan tagaynaa layerkii hore aan u qarinay saddexaad, waxaan ka dhigaynaa activate. kadib waxaan ku sameynaynaa masking si ay noogu muuqdaan labada layer. sidoo kale waxaan leenahay masking. muuqda in halka air masking uu naga yar galay. aan ka soo fogeynaynaa xogaa. waxaa muuqata in halka colorka uu ka muuqdo. waxaan dooranaynaa layerka saddexaad. waxaad 2 jeer taabataa kadib waxaad imaataa mask feed adigoo colorka wax ku daraya. sidoo kale waxaan tegaynaa layerkii labaad anagoo taabanayna mar labaad. waxaana wax ku daraynaa mask feederka. arkaysan saddexda qof hal meel ayaan isugu keenay. si aan full ugu dhigano waxaan dooranaynaa qaybta quarterka, waxaana ka dhigaynaa full. ugu dambeyn waanu sameynaa muuqaalkii. waan filayaa inaad ka hesheen muuqaalkan. intaan ku kulmi doono muuqaalka xiga waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullahi